رئيس الوزراء حمزة عبد البر ayaa jebiyay rikoor ku yeelay ra'iisul wasaarihii hore Khayre. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu xilka hayay intii u dhaceysay sanadii 2017 bishii February ilaa iyo June 2020 waana 3 sano iyo 4 bilood. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadda xilka haya حمزة عبد البر ayaa waxa uu xilka qabtay sanadii 2022 bishii June لا يهدأ أولو جرو بيش نوفمبر 2025 وأنا 3 سنة يشم بلادا. حمزة عبد البر ayaa jebiyay rikoor ku yeelay ra'iisul wasaare Khayre waana noqonayaa ra'iisul wasaarihii koowaad ee waqtiga dheeraa ee soo maray xafiiska ra'iisul wasaaraha tan iyo burburkii kadib. dowladaha kala dambeeyay ayaa waxa hareyn jiray khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaana 4 sano la magacaabi jiray ugu yaraan 3 ra'iisul wasaare.